Bismillahirrahmanirrahiim. Halkan waa Real Matters Private School. Insha Allah waxaad ka baran doontaa dhammaan xisaab qaab aad iyo aad u fudud. Haddaad tahay sagaalaad, tobanaad, koob iyo tobanaad. Bismillahirrahmanirrahiim. Halkan waa Real Matters Private School. Waxaad ka baran doontaa dhammaan xisaab qaab aad iyo aad u fudud. Waxaan dhiganaa maanta mean, mode iyo median. Su'aalahan marka 4 su'aalood ayaan dhigan doonaa waa mean, mode, median iyo range. Haye 5, 7, 11, 9. Marka inta ba laysiiyey intiiba soo wada saar baa lagu yidhi afartii mean soo saar, median soo saar, mode soo saar iyo range. Marka mean baan ugu horreysiinaa. Mean maxaan ku helnaa baan leenahay. Mean waxaan ku helnaa waa the sum of number baan dhahnaa. Numberkan oo isku wada geynay oo loo qaybiyey intuu yahay. Inta numberu ka kooban yahay. Hadduu 5 yahay 5 number, hadduu 6 yahay 6 number ayaan dhahnaa. Marka hadda waan isku wada geynaya. Maxaan dhihi 12 u gee 7 u sii gee 14 u gee 5 u gee 7 u gee 11 u gee 9 baan dhahayaa oo loo qaybiyey numberku intuu ahaa 7 ahaa. 7 baan hoos dhigaya marka. Markaan 7 hoos dhigo waan isku soo wada geynayaa numberka. Markaan isku soo wada geeyo 12 7 u geeyo 14 u geeyo 5 u geeyo aan isku soo wada geeyo wuxuu ii soo bixi maxay 65 bii soo bixi loos dhigay 7. Marka intan ayaan isku qaybinayaa marka. Waxaan helayaa meankii muxuu ii soo baxay 9 dhibic 8 dhibic 2 8 6. Intaas ayuu ii soo baxay. Meankii maxaa helay intaa bii soo baxay. Waad fahantaan u maleynayaa meanka. Meanka waa intuu yahay oo la isku wada geeyey oo loo qaybiyey numberku intuu yahay. Marka modekan galayna median kan galaya. Median kuna waa marka hore arrangement waa la sameeyaa, waa la soo habeeyaa. Waan soo habeynayaa siday u kordhayaan baa la sameeyaa. Haddaad soo dhigatay increasing order iyo decreasing order. Marka waxaan sameynaa increasing order. Kabacdi aye 11 12 14 asana la dhahaa increasing order baa la dhahaa. Kabacdi markaan median soo saarayo waan eegayaa ma odd ba ma even ba ma dhahayaa. Hadduu yahay odd tirada dhexda baan qaadanaya. Hadduu even yahayna waan isku geynayaa labaan u qaybinayaa inta labada dhexda isu geeyo. Haye haddana 7 iyo 12 7 11 hadda. Marka median ka dhexdu noqonaya waayo waa odd way ka dhexdan qaadanaya 9 bas intaasaan ku soo helay. Haye mode kii baan aadayaa. Mode kuna waa maxayna tirada ku soo noqnoqotay meesha ku soo noqnoqotay. Mode haddaan dhaho maxaa ku soo noqnoqday 7 2 jeer soo noqotay. Marka maxaan dhahayaa mode kuna waa 7 baan dhihi 7 2 jeer ii soo noqotay. 7 2 jeer ii soo noqotaan dhahayaa 7 7. Marka 7 ayaan qoranayaa. Mode kuna waa sida tirada ku soo noqnoqotay ugu badan baa la qaataa. Range waa yahay. Range markaan rabo range kuna waxaan dhahayaa tirada ugu badan oo laga jaray tirada ugu yar. Bes waa intaaba. The highest minus the smallest ma dhahnaa. Marka waxa ugu badan waa 14 laga jaray 5. Maxaan heli 9 baan heli. Waad fahantaan u maleynayaa. Halkan waa Real Matters Private School. Insha Allah waxaad ka baran doontaa dhammaan xisaab. Su'aaleyni kalana waa dhowr su'aalood. Waxaa laysiiyey 6 14 8 5 3 11 9 ayaa laysiiyey. Markaan raadinayo mean markaan raadinayo intuu yahay waan isku wada geey inta numberay ka kooban yihiin tiraahana waan u qaybinayaa. Waxaan dhahayaa marka mean maxaa lagu helaa waa sum of number over number. Isku soo wada geey marka 6 u gee 14 waxaan oo dhan markaan isku soo wada geeyo isku soo wada geeyo 1 2 3 markaan dhaho waa imisa waa 56 loos dhigay 7 ayaan dhahayaa. Markaan sidaa dhaho meankii maxaan soo helayaa 8 buu ii soo baxay. mean 8 baan soo helay. Waad fahantaan u maleynayaa.
markaan miinka intaas soo hela mediumkii baan raadinayaa. Mediumka maxaan idhi even iyo odd baan u kala eeganaa, ma tiro dhaban baa mise waa tiro kasi baan dhahnaa. hadduu markaa kasi yahay ta dhexdaan qaadanaya intaan soo habeeya marka hore 3 ayee 5 6 8 9 11 14 waan soo habeeyey. marka hadduu imika waa 7 lambar eeg 5 iyo 14 5 11 6 9 dhexda baan qaadanayaa. ka dhexda ayaa medium iya waayo waa odd way. marka medium maxaan dhihi 8 baan helay. mediumkii 8 buu isoo baxay. marka intaa qaato mode baan raadinayaa. mode maxaan nidhi tirada soo noqnoqotay ugu badan baa la dhahaa mode. marka maxaan dhahayaa tirada ii soo noqnoqotay ma jirtaa tiro soo noqotay ma jirtaan u malaynayaa. marka maxaan dhahayaa nan baan dhihi, nan baan qoranayaa nan midna calashan ayaan dhahayaa. waad fahantaan u malaynayaa. ranchigana maxaan dhahayaa tirada ugu weyn oo laga jaray tirada ugu yar. maxaa ugu weyn 14, maxaa ugu yar 3 baa ugu yar. 14 laga jaray 3 waa imisa 11. waad fahantaan u malaynayaa. halkan waa real matters private school. insha allah waxaad ka baran doontaa dhammaan xisaab qaab aad iyo aad u fudud. waxaa loogu talagalay dhammaan ardayda Soomaaliyeed inay ka faa'iidaystaan. insha allah waxaan ku rajo weynahay inaan soo saarno arday Soomaaliyeed oo tayo leh insha allah. haye su'aalaheeni ayaan ku noqonaynaa. waxaa la siiyey 6 8 5 5 haye 9 8 10 8 intaa marka la siiyo isla afartii baa la weydiinayaa. marka afarta marka la weydiinayo maxaan samayn miinkaan ugu horreysiin miinkan waa isku soo wada geegeyn intan oo dhan inta nambaru yahayna hoos dhig. hadda waa 8 nambar hoostu 8 buu noqon 59 loos dhigay 8 ayaan dhahanaa. kabacdi maxaan helayaa waa 7.375 miinkii intaasaan helay. markaan miinkii helo maxaan u baahanaya haddana medium baan u baahanaya. medium haddaan moodhkaba marka hore qorto moodhku maxaan idhi waa tirada ugu badan ee soo noqnoqota. maxaa ugu badan markaan habeeyo 5 5 waa 2 jeer 6 8 8 8 daa 3 jeera 9 markaa 8 aan qaadanana. moodhku waa maxay tirada ugu badan ee soo noqnoqotay waa 8 3 jeer bay soo noqon waayo 5 2 jeer bay soo noqotay 8 baan qoranana. isla sidan isagoo ah mediumka raadsanana. mediumka markaan raadsanno maxaan idhi 1 1 5 9 haye maxaa ii soo haray 2 ii soo haray. marka 2 waa labada dhexda oo la isku geeyey 2 u qaybi waa 6 iyo 10 2 u qaybi waa 8 iyadana 8 ayaan qoranaa. ranch baa ii soo haray. ranchna maxaan idhi tirada ugu weyn oo laga jaray tirada ugu yar waa 10 ka jar 5 5 baan helayaa. marka iyaduna 5 ba ii soo baxday equal 5. waad fahantaan u malaynayaa. halkan waa real matters private school. waxaa loogu talagalay ardayda Soomaaliyeed meel kastay joogaan inay ka faa'iidaystaan insha allah. marka casharkeennii aan kusoo noqono su'aalaan kalaan ka shaqeynayaa 12 15 21 4 3 36 15 11 48 29 38. marka miin markaan raadinayo waa maxayna isku wada gee 12 u gee 15 3 21 u gee 4 u gee 36 u gee isku wada geegee tiro ahaan intay yihiinna u qayb. ma fahantaan u malaynayaa. miinku waa sidaas had iyo jeer markaan la raadinayo waan isku soo wada keenaynaa. maxaan soo helnay 290 intaasaan soo helnay. marka 229 10 u qaybi waa 2.9 baan soo helay. marka intaas soo helo maxaan soo helay waa miinkii intaa baan soo helay. maxaa ii hadhay medium iyo mode iyo ranch saddexdaas ii hadhay. marka maxaan dhahayaa medium maxaan idhi
waan habeynana marka hore arrangement baan sameynaa increasing order baan sameynaa waa 4 maxaa igu xiga 4 11 12 15 15 kale 21 haye 19 36 38 48 saasaan usoo habeynayaa markaan sidan usoo habeeyo maxaan isticmaalayaa markaa waan moodkii maxaan helay 15 baan helay mood muu soo baxay 15 haye medium markaan raadinayo maxaan nidhi tiradu hadda waa 10 xabo labada dhexdaan isku geynaya markaan soo habe 4 intaa haye 11 38 12 36 15 19 intaasba waa even marka labadan isu gee 15 u gee 21 oo labana usii qaybi markuu even yahay labada dhexda la qaataa laba loo qaybi hadda waa even isku gee labana u qaybi waa 36 laba u qaybi 36 markaan laba u qaybiyo waa 18 bay isoo baxaysaa 18 waad fahantaan malaynayaa waa mediumkii weji ranchkii waa noo hadhay ranchkana maxaa nidhi tirada ugu weyn oo laga jaray tirada ugu yar ka jar oo ah 44 asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu